marka hore waan idin salaamayaa marka labaadna waxaan doonayaa kan runtii inaan uga mahad celiyo gudoomiyaha guddida baarlamaanka ee arrimaha dibadda iyo xubnaha ku jira maxaa guddidaba oo halkan maanta nagu marti qaaday inaan ugu nimaadno aniga iyo wasiir ku-xigeenkaygu saan ugu waranno waxaan uga warannay shirkii maalintii dhawaato ka dhacay Dubai iyo heshiisyadii aan soo saxinay ka soo baxay waxaan kaloo iska wareysanay guud ahaan siyaasaddeena dibadda iyo duruufaha maanta inagu xeeran iyo sidaan oo wada shaqayn lahayn waanu isla afgaranay aad baan uga mahad celinay oo mahadsantahay assalaamu calaykum warahmatullahi saacadda magacayga maxamed farx Cumaade su'aasha ugu horeysa hadaan ku weydiiyo soo dedejinaya waxa jirta warqad ay dowladda federaalka Soomaaliya u qortay jaamacadda Carabta midowga jaamacadda Carabta warqadaasi oo ah dacwad ka dhana heshiiskii Somaliland DP World iyo Ethiopia ay wada gaadheen ka xukuumad ahaan sidaad aragtaan bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa laga hadlayaa waa dekada berberana Somaliland bay ku taallaa waxaana maareeyo xukuumad constitution-keena iyo dastuurkeena ka federaalku ma xukumo cid kale oo arrinkan waxay qabsan kartaana ma jirto waan ka warhayaa warqadda insha Allah anna warqad kale ayaan ka dabageyn doonaa oo ma taqaana aanu mowqifkeena aanu ku muujinayno xaqiiqdu waxa weeye Somaliland waa wadan jira oo dawlad leh oo baarlamaan leh oo madaxweyne leh oo isagu ka taliya amurihiisa cid ka talisa oo kale ma jirto haddii aynu cid heshiis la gelin waxaynu kula gelaynaa sharcigeena aynu kula gelaynaa cid kale sharcigooda kula geli mayno raalli hada iyarba ku daraya waxa weeye runtii saaka anu warkoodii saaka ina dhageysanaysa voice-ka iyo maxaa iyo BBC-da ina dhageysanay kala garan maayeen horta waxay sheegaysaa nimankan aynu wax la leenahay koonfurta Soomaaliya runtii madaxda hor socota aqligay leeyihiin baa halka ka arkaysaan moogtii caaymayo afxumeyn maayo laakiin waxa weeye nimankii hore joog jiray iyo nimankan maanta aad iyo aad bay kala gedisan yihiin sababtoo waxa weeye dhul aanay xaq yani hadda aragteen ra'iisul wasaarihi wuxuu ku dooday yiri waa la idhaariyay buuri berbere iyo dhulkoo dhan baa la idhaariyo xil baa saaran buuri dadkii loo doortay ee loo dhaariyay baan halka joogaa marka waxaad arkaysaa dadkan yani waxa weeye aqligu sidoo yahay iyo maxaa ku siday u fakirayaan runtii aad iyo aad bay u kala furug tahay waxaanu doonaynaa inuu ka wada hadalno marka waxa la qolidina saxaafadu ninka saa u fakiraya ee maxaa ku rahay dhul aanu gaarsiinay iyo dhul ay wax wada lahaan jireen iyo dhul ay isku darsadeen yani dadkii doortay ee sida xaq ah loo doortay hadii bay farta loo taagay dastuurka lahaa ee baarlamaanka u lahaa intuu ka soo talaabsado yiri asagoo gacanta lagu soo qabtay oo maxaa ku rahay dilbibe qorqabasho ku yimi meesha inuu yiraaho maxaa ku rahay waa la idhaariyay waxa markaa ka arkaysaa inaan anigu aqoon inay ka tahay iyo waa kala garan waayay wada hadallada inaynu la gallo dee warinkii baarlamaanku baasgareeyay dawlad ahaan aynu qaadanay kama inaan noqonin laakiin waqtigan xaadirka duruuftiisa ama xayse in la wada hadlaa ma jirto marka dub baan u dhignay bil baan dub u dhignay wada hadalladii marka bisha ay dhamaatana waynu eegaynaa duruufta marba siday tahay inuu la bilownayo in kale wasiirka arrimaha dibadda wuxuu tagay shirka jaamacadda Carabta ee Qaahire ka dhacayay intuusan taginna waxaa la qorsheeyay in la gudbiyo dacwad ka dhan ah heshiiskii baadilka ah ee ka dhacay Berbera aan lagala tashan dawladda dhexe Soomaaliya hadday tahay Soomaaliya ra'iisul wasaaraheena oo wafdi rasmi ku jooga Imaaraadka arrintii markay dhacday waxay qaadatay inay maaragtay wadada saxda ay marto ee usluubaysan ururka jaamacadda Carabta ee aan ka mid nahay xurmada badanna ku leenahay ayaguna nagu leh sidaas ayaa marka warqadda aad aragteen ee baraha bulshada la geliyay ay u gudbisay Soomaaliya dacwad rasmi ah ururka jaamacadda Carabta ayna codsatay in lagu daro ajintayaasha laga hadlahayo loogana aqbalay marka lahjada ama erayada ku qornaa haddaad baqaarkood ii sheegto oo Soomaaliya ay ku codsanayso in wax looga qabto arrintan ay dhibsatay maxaa ka mid ahaa Soomaaliya waxay codsatay in maaragtay faragelin ay ku hayaan dawladaha Carbeed iyo dawladaha dariska qaarkood ayna ku soo xadgudbeen qarannimadii iyo midnimadii Soomaaliya ayna ka codsanayaan in maaragtay jaamacadda Carabtu ay inta ayada dhinaceeda jirta ay maaragtay arrintaas gasho
lagana daayo soomaaliya faragelinta iyo khalkhalgelinta amnigeeda iyo kala qaybinta midnimadeedii qaran intaasaa ugu weyneyd maaragtay erayada ku qornayd intii laga jawaabay oo bayaanka lagu soo darayna intaasun bay ahayd. waa gartay adigu maadaama aadan joogin wadanka laakiin haddana waxaa tahay diblomaasi dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan oo safaarad ayaad safiir ka tahay. somalilan saad la socoto madaxweynahooda hadlay wuxuu sheegay in arrintan ay tahay faragelin iyo dagaal ka dhana somalilan. marka wadahadallaa horey u jira dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilanba, marka arrimaha noocan oo kaleeto far isku taagtaag hadday noqoto soo wax uma dhimi karta xataa wadahadaladii iyo xiriirkii la rabay in lasoo celiyo oo maaragtay miiska laisugu imaado wax laysla meel dhigto labada dhinac. run ahaantii sahra horta sideeda waa laga fiican yahay wax la yidhaahdo in warbaahinta hadalla la isku mariyo waxyaabo qurxanna ma aha, wax fara badan oo annaga soomaalida nagu qurxanna ma aha. ilaa hadda waxa la qabanahayana waa wax soomaaliya oo dhanna dan u ah, gaar ahaanna dadka hadda gobolka ayagu ku dhex nool oo somaliland dan gaara usii ah weeye. waa hantidii qaran oo qaab maaragtay baatil ah ama qayb aan sax ahayn iyo shuruudo aan sax ahayn oo berri eel ku noqon doona soomaaliya iyo somaliland labadaba ay ku qoran yihiin ayay soomaaliya difaacaysaa. waxaan anagu difaacanaynaa dawladnimo maahana soomaalinimadu waa u dhalasho, waana wada leenahay. raas caseer iyo raas gamboni waa naga wada dhaxaysaa. qof walba oo soomaaliya inuu ilaashadana xaq bay ku tahay. kuwa dawladaha ah ayaa si gooniya soomaaliya xataa u ilaaliyo oo dawladnimada maanta xataa aan ku naaloonayno meeshii lagu soo aas-aasay iyo dadkii maaragtay isku xilqaamay waxay ahaayeen dawladda yar ee Jabuuti ee dhaqaalaheeduna xadidan yahay ayaa iyadoon cidna warsan dhaqaale waxay xooga saartay inay unugto qarannimo Soomaaliyeed oo wadaag ah, waana ilaa hadda midda lagu naaloonahay. waa gartay dhinaca kale Cabdirasaaq ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali waxaa jirto in imaaraadka Soomaali fara badan ay degan yihiin, hantida Soomaalida ay taalo oo ganacsi badan oo Soomaalida halkaas ay ku leeyihiin. haddii xataa dhinacaas kaleetana xiriirka uu xumaado maxay u dhimi kartaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku ganacsanaya hantidooda ay taalo muddada aadka u faraha badan? horta sidaan kuu sheegay Sahra, waxa laga hadlahayaa waa qarannimo iyo midnimo Soomaaliyeed. midda kale waxa weeye waxa laga hadlayaa waa DP World iyo waxa weeye iyo dawladda Soomaaliya. DP World ayada shirkad imaaraatiya oo imaaraadka ku dhex taalo shareholder ah, laakiin maaha macnaheedu dawladda imaaraadka. meelo badan baana laga soo eriyay sanadkan hadda 2 bilood iyo dhowrka aan marayna kaliya sidaad la socoto ama warbaahinta laga yaabo inaad ka akhrisatay Indonesia iyo Senegal, Djibouti, Soomaaliya kiiskii afraad noqonaya 2 bilood gudahood. waa gartay xiriirkii imaaraadka iyo dawladahaasna waa fiican yihiin. macnaheedu waxa weeye marka khaladka DP World gasho ma saameynayso xiriirka imaaraadka iyo dawladda kale ee ay DP World isayaan. waa gartay ambassador dhinaca kale bal waxaad iga warantaa dawladda Soomaaliya markii ay gudbisay dacwadda maxaa dhinaca jaamacadda carabta ka soo noqday oo lagu dhahay dawladda Soomaaliya? jaamacadda carabtu marka koowaad dalabkii Soomaaliya way aqbashay oo waa qabatay. markii labaadna ajentihii bay ku dartay sidii Soomaaliya ay u soo codsatay. marka saddexaadna bayaankii guud ee ka soo baxay shirkii soo gabagaboobay shalayto qodobada ugu muhiimsan ee laga soo saaray ayay ahayd ajentahan bayaan dheer oo oranaya midnimada Soomaaliya waa muqadas, faragelin laguma samayn karo hadday jaamacadda carabta tahay iyo hadday khaarijkeeda tahayba. waa in maaragtay la ilaaliyo midnimada iyo amniga iyo wadajirka Soomaaliya, aanan maaragtay loo gacan togaaleynin ama aan loo gacan dhaafin arrimaha iyadoo ay khaaska u leedahay. bayaan qeexan oo cad oo Soomaaliya ay ku qanacday ayay jaamacadda carabta soo saartay. inuu dhaqan galana waa rajaynaynaa insha allahu tacaala. kaasi waxa uu ahaa ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano, safiirka Soomaaliya Cumaan. waxa uu waramayay bayaan ka soo baxay jaamacadda carabta oo ka koobnaa 4 qodob ayaa waxaa ugu horreyn lagu soo dhoweeyey wadahadalkii Soomaaliya iyo Somaliland, waxayna ku boorisay labada dhinac inay sii wadaan si xal looga gaadho arrimaha masiiriga ah ee ka dhaxeeya. jaamacadda carabta ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay inay taageersan tahay howlgallada ay Soomaaliya ka wadaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee dowladda federaalku ay ka taageertay dhinaca
celinta nabadda iyo xasiloonida waa Soomaaliya. xuduudaha dhulka, cirka iyo badda Soomaaliya waxaa mas'uulka dowladda federaalka. ururka jaamacadda carabtuna waxa uu ka digayaa in faragelin lagu sameeyo arrimaha Soomaaliya nooc kasta ay tahay, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay jaamacadda carabta. sidoo kale ururka jaamacadda carabta ayaa sheegay inuu sii wadayo taageerada uu siiyo hay'adaha dastuuriga ah ee Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada iyo dib u dhiska dalka.